wafdiga xukuumadda ee uu hogaaminayo wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska ahna murashaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga kulmiye mas'uuliyiinta la socotay kala duwan heerarka kala duwan leh cuqaasha dhalinyarada shacab weynaha iyo bulshada halka joogta dhammaantiin waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore ilaahay baa mahad leh isugu keenay halkan aad baad u mahadsantihiin qorrax baa la joogaa waxaan marka koobaad idinka mahadnaqayaa soo dhoweynta qiimaha leh aad shalay noo samayseen ilaa xalay magaalada iyo bulshada qiimaha kala duwan ee la kulmaynay soo dhoweyntaanu kala kulmaynay iyo saaka taa u taagantihiin aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa wasiir cabdimajiid baa halkan iiga horreeyeyoo iskuulkan waxaan islahaa si gaara u sheegee isna wuu iiga horreeyey anna waan raacin doonaa anugu 3 sano ee 2008 ilaa 2010 bil haddaanan min bisha labaad iskuulka waan iman jiray xariirad iskuma cusbin waxay ahayd iskuullada tababarka macalinimada jaamacadda camuud ay ka shaqayso si gaara u tababari jirnay magaalooyinka aan soo marnoo dhan tuulooyinka waxaan seexan jirnay iskuullada barandahooga laakiin xariirad xadaarad bay lahaydoo maamula faysal oo xildhibaan imiga ah oo ardaydii aananu tababarka macalinimada siin jiray halkan ku jiray oo iskuulkana maamulo ka ahaa ayaa guri heer caalamiyeedna geyn jiray oo si fiican baan ugu seexan jirnay markaa waxaan leeyahay iskuulkaanna wasiirka ka noqday waa kan ee aan ka soo shaqeeyey ee wakhtiga aan geliyey wakhtigaa waxaan xasuustaa magaalada xariirad halka ay taagnayd iyo maanta halkay taagan tahay faraqa u dhaxeeya aad iyo aad bay inta indhaha caafimaadka qaba u arkayaan indhaha runta sheegaya xaqa aan diidaynu u arkayaan waxa weeye taasaynu ugala sii dhowaanno weeye magaalada xariirad iyo gobolkeenna guud ahaan dhibaatada inoogu weyni waa waddo dhibaatada ugu weyni waa jidkaana qaranka somalilan maanta insha allah haddii aan la idhaahdo mashruucii ugu weynaa ayuu adduunyada la kaashanayaa mashruucii ugu weynaa baa inoo soo socda laba dardaaran umaan idinkaga tegayaa dadka xariirad iyo gobolka guud ahaanba labada dardaaran waxa weeye waxaanu soo soconnay shalay muddo saacado badana 90 kiiloomitirna ma gaadho inta u dhaxaysa xariirad iyo boorama hargeysa oo 120 kiiloomitir boorama u jirta waanu u quraac tagnaayo qadadaa la soo noqdaayo waxa weeye waxba ma qaadato saacad iyo badh baa la socdaa wax ka yar halkanna intaasoo saacadood baa soo soconnay baahideenna koobaad iyo ta labaad iyo ta saddexaad waa jid inoo hirgala jidkaa laba qodob umaan ku dardaarayaa waa marka koobaade amniga inaynu si guud u adkayno bulshada isku xidhkeega ilaalinno tash yar oo dhexdeedna ka soo dhex baxa ayaa mashruuca wax inaga yeeli kara taa aynu ka foojignaano talada labaad ee aan idin siinayaa waxa weeye dad baa laga yaabaa mashruuc dee intaa leeg baa la wadaa mashruucu waxa weeye faysas buu leeyahay wuu kala dambeeyaa nidaam loogu talagalay baa jira waxay u baahan tahay cid baa tash idin dhex gelin karta waxaa laga yaabaa xisbiyada mucaaradka qaarkood inay intaa horumarka bulshada tash ka geliyaan si aanu xisbiga kulmiya ugu guulaysan taana ka foojignaada baan idin leeyahay taana ka foojignaada waxaan ku soo ururinayaa kulmiya waddanka wuxuu ka qabtayna hore loo arkay iminkana waxa ka go'an inuu waxa weeye intii uu sii laba jibaaro ugu dambayn fariintayadu waxa weeye inaan xisbiga kulmiye dhisno wasiir saashin oo nin reer maxaan ku dhahday xariiradana aan nala dhistaan aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu